وهاك وزيرك arrimaha dibadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta qonsuliyadda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda ee wadanka Sacuudi Carabiya. wariyaha halka nooga soo warama Cali Jaamac Cilmi Cali Koos ayaa nooga soo diray Jidda warkaan. وزيرك arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawaad iyo wafdigii uu hogaaminayay uu kamid yahay agaasimaha waaxda Carabta ee wasaaraddaasi mudane Mustafa Aadan Dagaal oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta soo booqday xarunta qonsuliyadda guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jidda. haddaba booqashada wasiirka iyo wafdigiisa oo ay ku weheliyeen danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya mudane Daahir Maxamuud Geli ku-xigeenka danjiraha mudane Saalim Macow Nuur waxa xarunta qonsuliyadda si diiran ugu soo dhaweeyay ku-xigeenka qonsulka guud mudane Axmed Maxamuud Diiri Macruuf iyo dhammaan howlwadeenada iyo shaqaalaha qonsuliyadda iyadoo uu wasiirka intii uu joogay xaruntaasi uu soo kormeeray dhammaan xafiisyada oo aad ugu korgalay adeega xafiisyadaasi ay u hayaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jidda iyo hareeraheeda isla markaana uu xafiis kastaba ka dhageystay warbixino la xiriirta xilka ay u xil saaran yihiin intaba. haddaba gabagabada kormeerkaasi kadib waxa wasiirka uu warbixino la xiriirta waxqabadka guud ee qonsuliyadda iyo iskaashiga iyo waxwada qabsiga ay la leedahay safaaradda Soomaaliyeed ka dhageystay ku-xigeenka qonsulka guud mudane Axmed Maxamuud Diiri Macruuf wuxuuna ugu dambeyntii wasiirka uu ku beeriyay mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada iyo shaqaalaha qonsuliyadda sidii loo sii xoojin lahaa adeega loo fidiyo jaaliyadda Soomaaliyeed iyo sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa baahidooda. haddaba kormeerkaasi kadib waxaa wasiirka rasmi ahaan uu magaalada Jidda uga furay xarun cusub oo ay leedahay ergada joogtada u qaabilsan dawladda Soomaaliya iskaashiga ururka Islaamka. haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawaad oo furitaanka xaruntaasi kadib ka hadlay halkaasi waxa uu ka waramay ahmiyadda xaruntan cusub ay u yeelan doonto horumarinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga dawladda Soomaaliya ee la leedahay ururka Islaamka. aniga sharaf badan bay ii tahay oo isa saaran dhowr heer oo sharaf inaan maanta masalada joogo sida uu sheegay Cabdirasaaq ku magacaabay Samcaani oo maleeyahay waa socodkii ugu horreeyay oo rasmi ah oo intaan wasiirka noqday waddanka laba asbuuc ka hor aan waddanka dibadda uga soo baxo waxaan kusoo beegmay oo socdaan kaa noqday inaan dalalka islaamka ururka dalalka islaamka shirkooda gaarka ah aan kasoo beegmalo. haddaba munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ah mas'uuliyiintii la socotay wasiirka iyo ergeyga joogtada ee dawladda Soomaaliya u qaabilsan iskaashiga ururka Islaamka danjire Cabdirasaaq Siyaad Cabdi. Cali Jaamac Cilmi Cali Koos warbaahinta qaranka Soomaaliya Sacuudi Carabiya.